warahmatullahi wabarakatuh. Maanta waxaa sharafeynoo ah in ay halkaan noo yimaadaan wafdi oo hogaaminayo wakiilka xogayaha qaramada midoobay Nicholas Haysom oo iyo ku-xigeenkiisa Mr. Zeniga oo u yimid iyo yani wafdi kale oo la socda. Nicholas waa cusub oo la socotaan waa booqashadiisa u horeysay ku yimaado Puntland. waxaanu runtii ku faraxsan inuu yimaado booqashadiisa u horeysay halkaan noogu yimaado. waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo ay ka mid tahay siyaasadda Soomaaliya ee cakiran stalemate-ka iyo hadda kala aragti duwanaanshaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada arrimaha security-ga arrimaha siyaasadda iyo taageerada beesha caalamka ay siiso Soomaaliya iyo sida waxay fikir anagu aanu qabno inaanu sheegno dhankayaga sida xal loogu heli lahaa mushkiladaha Soomaaliya oo amnigu ugu horeeyo sidii la isugu soo dhawaan lahaa loo wada shaqeyn lahaa Soomaalidu u wada shaqeyn lahayd beesha caalamkuna oo Soomaaliya ay ula shaqeyn lahayd. waxaa soo dhamaano ka hadalay iyo mandiqada dhamaanteed marka runtii wuxuu ahaa booqasho wanaagsan wuxuu ahaa booqasho wax badan aan isweydaarsanay iyo aragtiyo kala duwan oo runtii aan isleeyahay wax badan bay ka tarayaan geedi socodka nabadda Soomaaliya. marka welcome SRSG. Thank you for coming. President, we discussed the challenges facing the nation and the region, and we in particular looked at the modalities and ways in which both levels of government in Somalia can work together to achieve what Somalis want, which is peace and prosperity. And it was an important opportunity to underline the importance that for Somalia to succeed, everybody needs to work in the same direction, that we cannot have all the players working on their own. We also had an opportunity to discuss the Turkarek dispute, conflict, to see how it can be managed in the medium term and hopefully solved in the long term. And I'd like to thank the President for the open discussions that we managed to have.